إن شاء الله تعالى وحندح قلنا جدول محاضراتك كلمة ير وينوسو جديد دونه دكتور يوسف شيقة وحكم دي هاي قولها دعوة البيان وحو نوسو جديد دونا وربحين جود ما دام وأسيق كركيمت البيان جود هان ودنك انت قبل يجوغان مدارس تودا مراكز تودا وحقبت كودا وحان إسراعي دونا كلمة الشيخ يوسف واتباع هدي السلف صالح واجتناب الأفكار المنحرفة قابك أن سلفك أن أراعي لهن هدي يقودا سيدا أن أوقف وقال لهن أفكارتا انحرافسا مركا وربحين تيسا كلمة دي سبا إن شاء الله تعالى واسكو درسنا يا شيخة وحان سيدونا إن شاء الله مدة صدن دقيقة هدو إلهيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وذاتك وحير وربحين كلمات لا داعي وربحينتها انت انا قلن كهره وحرب وحير دليله ان الركب تونسو جيدي وهي حق ليهين رجل دور بين دهان ما نجي انتو كانت يحصل الدوبين انتو كان دعوه قرب تاغن انتو قد حسبين ما دليله له ان يرادان اي جوابتا صوبيان حق بيقولين لكن وحي جيرنا سو شيغنا دليشينا waxa kowka ina dacwada garab taagantiin waxa kowka ina isjeceshiin waxa kowka laba ka ina magaalada heshiis ku tiin oo wada shaqeysanaayso dad isku xiranaatiin hadii dhinac kale loo dhigo hadaan wanaag dhihi lahay horad ka wada farxin laakiin marka hore inaan ka nixiyaan rabay kadibna adib ka faraxdan marka farax inuu dambeeyaa fiican ee khayr allah idan siiyo anigoo ku hadlay magaca albayaan tarastiga iyo duqa tarastiga Xasan Goori Cabdulle iyo qaybaha kale oo tarastiga kamid ah iyo guddiga tanfiidka Cape Town meesha la yiraahdo waa meel qalbiga reer South Africa reer Koonfur Africa ugu weyn ku weyn waay xagga dhaqaalaha iyo xagga tirada dadka iyo dhaqanka marka la fiiriyo dad meel aad noogu weyn way Cape Town marka la yiraahdo dadka oo dhan qalbiga aad bay uga farxayaan waa meesha markii irsaaqada doonayaan dadka isku soo haleeyaan markii wanaag uu jirana la isku soo haleeyo Ilaahay barakeeyo raggiina iyo dumarkiina iyo ciyaalkiina Allah idin barakeeyo ducaadiina iyo dadka hawshiidin wadana Allah barakeeyo aad baad mahadsantiin intaas waa reer Cape Town markaan dib ugu noqdo albayaan waad ogtihiin dad albayaan ka daaweyn ba halkan jooga dad ka daayaro iyada ka daaweentayna waa joogan culimada Soomaalida markii wadanka soo galeen oo shacabka Soomaalida wadankan ku soo haajiray dadaal badan baa dadkii sameeyeen dadka hawlka ku jiray iyo dadka diinta wadayba way gacmaha isqabsadeen si intii soo gashay u dhumin baa laga shaqeeyay 97 1997 waxa isku day in dugsiga wixii meeshii dadku u badnaan Johannesburg ahead khayrkii meel badan buu gudbay hadda gobolada wadanka dacwada waa ka wada jirtaa 9 gobol marka laba meelood oo dadka aad ugu yar yihiin xoog laga reebo Free State iyo Northern Cape labadaas markas rasmi ah oo sax kama jir laakiin gobolada intooda kale maraakiis rasmi ah ka jirto meel guriyo oo hanti oo masaajida ay dacwada leedahay way Soomaalida leedahay iyo meelo kale way leeyihiin laakiin dacwada labada gool marka inta kale way ka shaqeysaa tan ugu yarna dugsi Quraan iyo meel baa ka jirtay musalla inta kale dacwada way ka shaqeysaa saldhigana waa Johannesburg iyo Cape Town meelaha u dhow intii ummad ay sameyn lahayd oo dadaal lahayd waa la sameeyay waxa soo haray systemka albayaan ay u shaqeyso meesha dadinka joogtaan dacwada ka dhisan iyo iskuuladeeda iyo waxeeda idinka ay idinku taagan yihiin Ilaahay fadligiis ka dib idinka idinku taagan yihiin inagu maamulkan u dejinay qorshahan u dejinay khayr baa lagu socdaa dadku waa iskaashanayaan dadkiina ganacsiga meesha joogo rag iyo dumar baa ka shaqeeyo waxna ku bixiyo ciyaalkana uga faa'iideystaan ragga wadaadana iyaguna intaasay u maamulaan oo hayaan marka si fiican oo hufan bay hawshu u socotaa gobol kastana waa sidaas meel kasta oo la tagana intaas bay ku socotaa Soomaalida waxa lagu yaqaan markii wax isla ay wax dhaxmaraan inay xogow khilaafaad iyo meelo kale yimaadaan dad culimada hadda Yurub iyo nooga timid Mareykanka waxay leeyihiin idinka wax idan dhaamo oo wada shaqaynteedan ku dhaamo lama hay Ilaahay baa keenay taas fadligiisa waxa kale oo keenay isleeyahay dadka Koonfur Afrika jooga oo Soomaalida say u bisil yihiin say u bislaadeen
baa sabab weyn u ah dadku dad bisil oo khibrad ku filan helay oo aqligooda uu kala go'ay oo meesha ay lafta ka jabaysa garanayo bay u badan yihiin taasaa keentay marka in ninkii wax qabay hataa uu iska sabro oo yiraahdo maslaxada caamka aan ka wada shaqeyn dadka Soomaaliyeed ee koonfur jooga aad bay koonfur Afrika jooga aad bay ugu mahadsan yihiin gobol kasta madrasa iyo masjid baa ka jira cadadka ardada ma hayo laakiin marka isku dardaro waxay yiraahdaan 2,000 xoog oo arday baa hadda gacanta lagu hayaa kuwa dhameeyay quraanka dhameeyay way sii socdeen madaarisana 3-4 madrasa ayaa jirto oo gobolada marka loo qaybiyo ah masaajidana waa badan yihiin dhowr iyo 20 masjid bay sheegayeen waadada in wixii anaga gacanta ka inii wixii raacsan iyo wixii aan maamulno wadanka dadka dacwada waxa loo tirinayaa waa 20 sano taqriiban 20 ka sano wixii la qaban karo intaas ay noqdeen hantida albayaan ay gacanta ku hayso guriyaha aad bay badan meeshiinaan wad aragteen intaas guri baa ku taala Pretoria 6 iyo 5 baa ku taala Johannesburg meesha hadda la gaday marka lagu daro way badan yihiin Port Elizabeth East London meel badan Rustenburg meel badan wax ka jiraan waxa soo dhan ubadkaad ahaysaan baa insha Allah anaga markaan hore u socono ubadkaas la rabo inay si maamulayso ay si wadaan aygiba hadda loo tarbiyeynaa inay hore u sii wadaan insha Allah taala mashruuci ugu dambeeyay ee la galay huwa mashruuc weynaad lacagta urursan hadda loo bixiyay mashruuca markaska albayaan ee cusub kaniisadii baa xaw dhunta mari weyday oo laga carabkii baa la bartay laakiin waa la qaban waayay mashruuci asaga ahaa uu najaxay magac albayaan buu ku soo wareegay hadda markii iskuulka la furo madrasada iskuulkii meeshii baa loo rarayaa maalidood baan daraad biciyalka uu qabanay gacantu soo galay 9 milyan baa laga bixiyay oo la socotaan oo qaybta ugu weyn aan Eastern Cape iyo Western Cape ay bixiyeen iyo Gauteng inta kalena East Africa Kenya ayuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala nooga soo saalay oo aad noo garab qabtay oo ayaguna lacagtaas aan ka keenay meeshaas waa soo wareegtay waa meel aad u weyn 3,000 iyo xogo square meters ah oo maanta ummadda gacanta soo gashay oo leeyahay mustaqbalka laga dhigo madaarista Hindiga iyo ummadaha kale ay haystaan oo kale iskuulo noocaas inaan ka sameeyno biidnillaahi tabaaraka wa ta'ala haddana way howl gashay oo insha Allah way ku bilaabayaan marka iskuulka la furo waxa soo haray oo inta ku diraya waxa jira hadda wixii ka dambeeyo in dhaqdhaqaaqa iyo isku xirka dacwada uu aad iyo aad insha Allah taala hore uu kici doono gaari baanu iibinay oo bas ah H1 ah baskaas waxa loogu talagalay inuu gobolada wareego meel kasta tago haddana insha Allah taala hadii ciyaalka kambiga loo keenayo lagu keeni doona wuxuu wareegayaa gobolada dhan culimo ayaa bixi doonta tanfiidka iyo tarastiga iyo inta la shaqeysaba rag baa bixi doona gobolada ku wareegi doona si dacwada iyo khayrka dadka loo gaarsiiyo taasna way fududaatay wixii hadda ka dambeeyay shaqada noocaas ah waa la qaban doona biidnillaahi taala waagi hore waxa jiri eedo xogow maartay gobolada lama aado lagama shaqeeyo laakiin hadii wixii waxbaan ka bedelnay insha Allah taala waxaan rajaynaynaa hawshaas ay aad u qabsoonto mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahad celinayaa gabdhaha iyo wiilasha iyo odayaasha Cape Town iyo nawaaxigeeda iyo sida sharafta leh markaan fiiri guddiga dacwada reportka ay bixiyeen inay aad iyo naftooda ugu hureen dacwada iyo ubadkooda daryeelkiisa aad ugu hureen jazaakumullahu khayran ilaahay dan barakeeyo waxaan iskugu nimid waa diinta ilaahay way wax kamid ah baan insha Allah taala wax yar taaban doona marka qaybtii warbixinta waa intaas qaybta kale ee mawduucan lagu soo qoray waxa weeye mawduuc muhiim ah qofkii mawduucaas daadihin laha aniga miihi laakiin nasiibkii baa igu dhacay kaas waxa weeye raacida tilmaamaha salafkii ummadeena ee hore iyo ka fogaanshaha laga fogaanaya afkaarta qaldan ee ibn aadanka ku imaan karto waxaan rabaa nusuus wax yarna nusuus ka taabtay insha Allah taala salafka waxa la yiraahdaa saa la socotaan dadka ka horeeya salaf bay u yihiin marka salafka halkan la tilmaamayo waa saxaabadii iyo quruuntii nabiga uu yiri khayru alquruni qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum qarniga waxa lagu tilmaamaa 100 sano sida qowlka raajixa 300 oo sano u horeysay dadkii joogay baa salaf loo yaqaana sida qowlka raajixa xadiidkaas saxiixa ah sidoo nabiga ku sheegay oo leeyahay khayru naasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum dadka waxa ugu khayr badan dadka aniga hadda ila joogay oo saxaabadii ah iyo kuwa ku xigay iyo kuwa ku sii xiga waxay marka ku tilmaamaan saxaabadii iyo taabiciintii iyo taabiciin qoladii ka sii dambeeyay saddexdaas jiilo isdaba taalay ayaa maartay loo yaqaan salaf saalix dadkaas dhaqankoodii iyo hadigoodii in la qaato way lagana fogaado afkaarta khilaafsan
manhajkii salafka oo aad u fara badan laakiin qofka hadduu manhajkaas ku dhago oo uu haysto wuxuu ka badbaadayaa afkaarta qaldan buu ka badbaadayaa haddii uu manhajkaas ka tagana wuxuu afka u gelayaa afkaarta qaldan weey buu afka u gelayaa nusuusta waxaa ka mid ah nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay qul hadhihi sabiili ad'u ila allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani aniga tan waa jidkayga buu yiri ilaahay baan dadku ugu yeerayaa anoo cilmi iyo basiira iyo aqoon ku dhisan aniga intii raacdaba kaas ajidno aniga intii raacdaba kaas ay ajidno oo nabiga sallallahu alayhi wasallam uu leeyahay marka saxaabadii hadii bay ku sugnaayeen wadankooda waqtigoodii bidca ma jirin mubtadicna ay mayna lahayn dad jidka ilaahay ku toosan ayay ahaayeen oo jidka ku taagan xadiid kale wuxuu leeyahay nabiga sallallahu alayhi wasallam عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين waxaad qabsataan oo ku dhegtaan sunnadayda oo jidkayga ah diintayda way iyo sunnadii khulafaa ar-rashidiin oo mahdiinta nabiga ku tilmaanay mahdiyiin oo dad hanuunsan waxna hanuuneeyeen عضوا عليها بالنواجد goos dambaha ku qabsado yiri inaan ka fakadin sunnadaas tii kalena wuxuu yiri taraktu fiikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada kitab Allah wa sunnati waxaan idin kaga tagay laba shay oo waligiin aydan lumaynin haddaad qabsataan waa kitaabka ilaahay iyo sunnadaydu nabiga sallallahu alayhi wasallam Abdullah ibn Mas'ud ayaa wuxuu leeyahay radiyallahu anhu isagoo arintaas tixraacaya ayaa wuxuu yiri ittabi'u wala tabtadi'u ittabi'u jidka leedin jeexay oo kitaabka quraanka iyo sunnada ah raaca raacidaas marka waxa ka dhalan inaad taqaanid la waxaad aqoon ma raaci karto waa inaad taqaanid barato way ittabi'u jidka nabiga يا كتابك إلهي راع ولا تبتدعوا وحسب هلا إيماننا ودين إلهي كسو درينا وحسب وحور فقد كفيتم والدك كافي إن أضوح حسب كينتان والدك كافي سببته أبو يري شريعة وكامل منهج كسلفك وكامل واحد دين تكلم من الجسو درية مجرته وحبا دينك هرادين عصبه رأيي إنه حكور هادينه عقلي إنه حكور هادينه وحي اللي إذين جديي راع سببته إلهي سبحانه وتعالى ما فرضنا في الكتاب من شيء كتابك وحن كتقني أو ناقص مجر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وآيده قدام بين النبي كسو الدقي دينته وأن دين كامل الله سبحانه وتعالى يري نعمة دينا وأدينكم كامل يالو دينتي ورضيت لكم الإسلام دينا واحد دين كدقتان أو اعتقادي عبادي معاملة بعد منهجي نول كدقتان وأنا أقول رالك أيوة إسلام ككلي وحي إسلام كبحسن إلهي رالك معه إمام أوزاعي سجن وحيري صو هذا الكاشيء وحيري اصبر نفسك على السنة سنة ذا كصبر بويرنا سنة ذا النبي يجيك النبي كصبر وقف حيث وقف القوم تدكي صالحين تها أو سلف كصالح أو صحابة يكون قدم بي أو أنصار شيء ماشي دين تكي استاجين استاج وصي ودقمين ودقن وقل بما قالوا هدي وحلا الشيء الدين وحلا الشيء يستاج وحوش الشيئين هكجد بينه سي وحوش الشيئين يسير هذين وحير هذين حقا أدقنا ده وكف عما كفوا عنه وحي كي استاجين كي استاج إنكاس إمام أوزاعي وأدتك هراء وسفي عنه فهم برامج كاس وحليه وصلك مسلك السلفك الصالح دتك هذه هراء والصحابة دي التابعين دي كحجي جد كودي الرع هكذا حني وعلي وحيري فإنه يسعك ما وسعهم وحي أيها كفل ناضي أدقنا يكون كفليهين هذا أنت إيش وحكى ناقص أي مجرى أيقونه وحاله بيني جد سحكوا تجناير عبد الله بن مسعود حوله قول كلمن كان مستنا فليستنى بمن قد مات قفك الصنع إنه راعه وحكود يدربه دتك الدنتي هكود يدور دتك الدنتي واي وصحابتي يتابعين دتك اللي هوي والنبي يقول وادتك أيقا أفضل بدن كواس هكود يدور فإن الحي لا تؤمن منه الفتنة قفك النول بويرو وادت كود ينيس فتنة اللي جاء من مال إنه يسبدله وفتنة يكون عدو حق الدين تكفي نوبة آمين لجماعة هبوا ليه هاي وفرس أولئك كوا عن شيء جاي إن لو ضيد متيسم وحوي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم محيري إنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوما اختارهم الله لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وحمل الدين
riwaayadaha qaarkood xamla diil ay ku darayaan waa dadkii ummaddan ugu qalbiga wanaagsanaa buu yiri oo cilmi ahaan cilmigooda ugu qodada dheeraa oo takallufka iyo iska doondoonkana aad ugu yaraabo ay hayeen buu yiri waa qowmu nabi ilaahay doortay oo nabigiisa inay saxaabo u noqdaan fatashabbahu bi akhlaaqihim meeshaas way meesha markaan u socdo akhlaaqdooda ka qaato oo isku daya sida akhlaaqdii saxaabada inaad u dhaqantaan wa taraa'iqahum yajidkii qaadeenna inaad qaadaan isku daya وفيرس فإنهم ورب الكعبة على الهدى المستقيم كعبة ربي قادن كل أرتيه وحي كسو جيهم برهانون أو توصم يكسو كوا هنون كودا والله با ساس ويحول إليه جد كودا راع الإمام قيرناوي وحوليه هاي رحمة الله عليه ابن أبي زيد اللجوا إلى كتاب الله وسنة نبيه واتباع سبيل المؤمنين وخير القرون من خير أمة أخرجت للناس نجاة بدبادة حيكون جرتاب ويري كتابك إلهي أو حقي صلى الله عليه وسلم إيا سنة النبي إيداتك مؤمنين تاهلوا بجدكو دي أول الراعة كواسوة خير القرون أخرجت للناس جدكو دي إلا الراعة حكو سنون بير النجاة محل لقى بدبادة فتنة إن لقى بدبادة قالمة إن لقى بدبادة نارت إن لقى بدبادة مصائب تأدونك إن لقى بدبادة عقابك آخر وحيكون جرتاب ويرتاس ففي المفزع إلى ذلك العصمة دور سنانتا هي حفظك وحيكون جرتاب من حق وضع الله عرّه وفي اتباع السلف الصالح النجاة هذا ربطين بدباده وحاد أداوير وحاد رعداوير السلف صالح أي منهج كودا رعوير فالسعيد ابن حجر العسقلاني تقرن يساوي حليه هاي فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف واجتنب بما أحدثه الخلف دينك نولش وناكسن إنه كنا ولا ضرب ودين تيسيو بدباده وقفك وحوير قبصدي بما كان عليه السلف dadka salafka jidkoodii qofka qabsaday qofkaas saciid noqonayo diintiisana kalsooni buu helaya aakhirana isku haleyn buu helaya wajtanaba ka fogaaday ma ahdathahu al-khalaf dadkii dambe iyo firaqdi dambe iyo masaa'ibti dambe waxay sameeyeen qofkii ka fogaaday intaas waa nusuusta ku saabsan in manhajkii salafka la raaca waxay leeyihiin taxdiir baa jira marka laga digayo manhajkaas wixii khilaafsan in laga digo dadku umada looga digo sababtoo waad garanaysaa diinteena al-amru ma'ruf wa nahy 'an al-munkar waa markii macruufka la is-amro waxa iimaanaysa an-nahyu 'an al-munkar xumaantan la iska reeba sababtoo adduunki ba xumaanti iyo wanaagi ba isgarab socdo qawaacida jamaa ahlu sunna wal jamaa waxa kamid ah markii ay ka digayeen hadalkaas wuxuu dhacay qurunti hore u dhacay markii laga digay inxiraaf qofka inuu ku dhaco laga digayay waxay leeyihiin ibn abul izz ninka la yiraahdo oo saaxiib at-tahawiya wuxuu leeyahay asagoo ka digaya dadka muslimiinta inay diinta isku kala saaraan oo xad gaalnimo la isgaarsiiyay nifaaq iyo diinta la iska saara asagoo ka digay wuxuu leeyahay wa nusammi ahla qiblatina muslimiina mu'minin dadka qiblada aan wadaagno oo isku meel u tukanno ee Makka mukarrama Kacbadan u tukanno waxaan u naqaanaa weeran ku magacaabina muslimiin mu'miniin ayri lafdigaas marka culimada waxay leeyihiin hadii la kulmiyo muslim iyo mu'min hadii la kulmiyo waa isku mid hal waxay qaadanayaan islaamka qaadanayaan hadii mid gaar loo sheegana kan kalena uu soo galaya waxaan u magacaabaynaa weeran muslimiin mu'miniin baa u naqaanaa maadaamu bima jaa bihi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam mu'tarifina walahu bikulli ma qalahu wa akhbarahu musaddiqin wuxuu yiri waxaan u naqaanaa muslimiin inay yihiin ra'yiga lagu kala duwanaan karaa waxba isku khilaafi karaa laakiin haday nabi maxamed wuxuu sheegay in rumaysan yihiin oo fiirso nabi maxamed wuxuu sheegay in rumaysan yihiin waxa la wixii nabigu leeyina i'tiraafsan yihiin salaadina tukanayaan wax kasta ma isku khilaaf dadka muslimiin baa u naqaanaa waa goorma markuu leeyahay muddo dheer qarnigii labaad way markuu saas leeyahay ninkaas oo fiirso maqbariga ku xigay qarniga ku xigay way waxa kale inta ku diray wala nukafiru ahadan qofna ma gaalaysiin inuu yiri oo min ahli al-qibla dadka tukada kamid dadka tukado qiblada u tukado qof kamidna gaal ka dhigmayno yiri bidanbin ma lam yastahilu dambi uu galay dartii inaan diinta uga saarno gaal ka dhignay yeelimayno yiri haduusan xalaalaysan dambiga uu galo waa xalaal u sadii sababtoo shariicada waxay xaraam ka dhigtay qofka waa xalaal yiraahdo uu diintu kaga baxaya waxay shariicada ay xalaalayso qofkii waxay shariicada xarimto waa xalaal yiraahdana diintu kaga baxaya hadii uu san heerka gaarin dambi uu galay iyo wuxuu ku dhacay iyo duruuf la soo gudboonaatay iyo xoog uu sibqaday iyo diinta uga saari mayno gaalnimo ku xukumayno
sababta xadiidkii uu wariyay nabiga sallallahu alayhi wasallam sahih muslim ku soo waray wuxuu leeyahay man salla salatana واستقبل قبلتنا وذبح ذبيحتنا فذاك المسلم له ما لنا وعليه ما علينا قفك صلاة دينا أن تكدوا النبي صلى الله عليه وسلم حديث كمسلم كسوراري صلاة دينا أن تكدوا قفك تكدوا تقانا دي شنت وقت تكدوا واستقبل قبلتنا قبلة دينا تكدوا وحاجة سميلك أن تكنينين وذبح ذبيحتنا وحن أنا جور عننا عنا أما وحن أسق جور عن عنين ودي اسكن نظام عن هاي فذاك المسلم قفك سوى مسلم بور قفك سوى مسلم له ما لنا وحي أنك عن لين هين وليه وحقوق واجبات النصارى وعليه ما علينا وحي أنك واجبات النصارى أسقنا ويساري اسكو بيت بان هاي ورك قفك دو تكنيو وصلاة دو سنديدين قبل ذي تكنيو إسلام مدى ظاهر كأو هايستو ذنوب تأسق هو سعان وقال سقي إلهي كده حيث الدين تلقى مسارك أنت أسوأ خلاصة وحن أنت كدر إن شاء الله تعالى أسباب تكين دقفك إنه الدين انحراف أي كجشو وجدك إلهي وكل يحظه وعليس بدن وكي ما دو أكتين هذا جارهان وقتك هذا الجوة سوشيال ميديا وحيا أحيا لو ذكر إنسان دب إلهي إنكرسن أوله إلهي ميتو سكرت عليه إلهي ميادروزي ميتو سكرت بكله ميتو سكرت إلهي بكله مركز الشريعة دي وما من لقى سوق لنا على سوق لا يدينتي أسبابتك كانت هو وين إنه قفك انحراف قدع وقدك صحة وكل يحظه وحاوي الجهل بالدين قفك الدين تينو سنقرنين هذا نظام كسود أفريقيا كجرة ضدك هذا ما يشافر ضدك وحبرته جامعة سكول قريب انتو ذا كله هدي اللي ويدي نظام كسود أفريقيا كجرة قفك ما قرنين نظام كجرة وآمن سني هاي لكن وحي ما قرنين صادرت قفك إسلام كهدو الدين تسماشا كجو إنه إسلام جرى وأوجي هاي هو أبيس بقول علي صلاة بوتو كنايا لكن ما بيقان الدين تي قفك هدي الله إماضه ووحكى الله كان ولو شو بكرة أول الجدال لو بحي سبته وحيليهن فإن البطون وفرس إذا جاعت أكلت الجيف علوش هذا بهاتالير ومالحو كجارت بختي جوا عنيسة قفك الدوب بهذا النفط قبض وحي كاري ما أدول لقيا ده شريعة هذا بنيس إنه مارت النفط كل عليه حتى بختي إنه عنكر وكذلك العقول إذا جاعت عقلك أنا وعلمت عقلك هدوب بهذا وحبه يكجرن خيره غير أكلت عفونة الأفكار أفكار تحنحن سيد الجيفة بختي وكلا قفك وعنا يا عقلي يسوق هذا هدي عقلي يسوق حكلا يكجرن مركز دو فراغ ديني أجر وقفك الدين تبى أسنقوني وحكلا لغو شوية مركز إما أدو إن الدين قلبك هذا كبوح له يا إما أنا وحكلا لغو شو الله من قريسة مركز واحد دفاع على قال كرا قفك الدين تينو يقان وحكى الأصابة قفك انحراف كوري كرا الفساد المجتمعي وانتشار المشكلات مركا بلشده مركا دباتوين بدن كجيران وقفك ميلو كنا استواي او عقل في عن اواي او عقل علي اواي او في عن الله هذا اواي او عليس جيره او اركو waxa laga yaabaa inuu ka raadiyo naftiisa idmeenaankeeda iyo saacadada iyo inuu ka raadiyo waxyaalahan kale oo afkaarta qaladka inuu ka raadiyo meel kale u galo ba dhici karto waxa kamid ah iyadana dhalinyarada al-unfu ضد الشباب dadka daayirta dhibaatooyinka ay kala kulmaan bulshada ama gurigooda kala kulmaan ama waalidkood kala kulmaan ama madrasadooda iskuulka kala kulmaan ama shaariica ay kala kulmaan hadii marka dadkaas caadifay u baahan yihiin soo dhaweynay qalbiga loo qaboojiyo u baahan yihiin hadii wax kamida lagu la tacaamulo iska cararayaan meel kale ay galayaan waxay ka raadinayaan meel laftooda ay ku dagtay ay ka raadinayaan taas sabab ay u noqotaa waxa kale oo idin sabab noqoto inxiraafka keena at-taghrib reer galbeedka waxyaalaha ay wadaan oo dadka muslimka ay kaga saarayaan dhaqankoodii hore oo dhaqan kale u bedelayaan waa keenaysa sababta waxa loo qurxinayaa qofka waxa ay reer galbeedka haystaan inay fiican yihiin waxa muslimiinta haystaan ay xun yihiin مثال أهم كسوق قادنا رجال بيت كنرك وحي حرتان رد أتكي يقصوني سحرتان أيها صوما مسلم كانوا وحي حرتان ده شرف له لكن كادي صدا وشرف طبنا محي وحي كاد عدينا ينحي وكليل ولو جبنايا ومدوي هاي مذكروا لي هاي قرح هذا الأرك ماي كان اللي يجي ما يصير لو وضع قف حديث عقيدة حق الأسن هاي سنين مركز التأثير بيكون يلا وأنا محي وري حجابك هوشا وين محي وري وفرس تغريب بالإرادة قف كبا وحارب إن نولشيسي لبدلو خدك كسعد قضاء لو بدلو بال ربا taas waxay keenaysaa marka cunfi inuu ka dhasho oo qofkii markuu arka waxa soo kaleeto uu arko oo 200 dhinac kale istaaga uu yiraahdo gaaladan sideedaba horta aan gamka siino online oo dilno oo saan yeel midna uu raacaya midna saas uga soo riyo labada waa qalad marka qofka gaalka ah ilaahay baa abuuray
إن أتكون دقن نقطنا ما أو تكون ضيعتنا ما ووالد ديد من تشبه بقوم فهو منهم تقول يدمر كوضة بالغومة ضينكر إن نفته ذا اللي جويه ولا دلوه ولا بهدلوه ولا مصيبة لو جيستنا معها مركز لقرب الجهاد كحقه سادرت قفكم مسلم كأنه وسط ونوضه سبته أمضان وأمض وسطوي وحيالها كان وحكم إذا قفك إنه انحراف قالوا وضع الأمة الإسلامية مركو أركضتك حضارة المسلمين والتخلفين ومداها كلا هرمري مسلمين الجوال مسامين كران موبايل مسامين كران ديارات مسامين كران أدون مسوي هجاجين كران أنا قاله الريا أنا محنود عمركو يراد مركاسو مركو إثبات الجلي وحراعية انحراف عقدي باكو ولا دين تين دين وحسوكر نيسمه لكن حقيقة ما حيتاي مركان أنا والدين تكون رقمينه وسيتها أقعدنه تتكاسونا وان كسرينا وحسوسار كنا وان كسرينا حضارتنا وان كسرينا لكن أنا مركان دين تكتجني أيجنا أنا قارن وما قعود قاعدنا نصفي عن دين تودي لو قاعدين دقن كودي بيا قفك مال دحدحدا بكل ما يا مركز ولا مركولي دين تيده مركز الدين تتهمي سنة لكن قالت كدين تما أنا سان أقول رقمينا أي قلده دليل كصحابة دي يدك متقدمين تهاي قرون تمرك الله فيريو مركي الدين ده سايته وقادني عالم كأيها هو جاميني لمن كان رير يوروب أركيسان عيال كود أنت أصوات درسان أنت أصوات درسان مسلمين ودن كود أصوات درسان بيوح وسو برنجرين مركز ساي فرطة يوح كسا لبرجرين نقنجرين مركز عنقي نينكي الميسو مسلمين تو عكسو برتو كفاني جري هذا أنا ما حدا عيه نين كان رجال بيتك عكسو برانين وح معنا كفري مجر waxaas ayaga ka shaqeeyay laakiin xaqiiqada maxay tahay diinteeni ba intay wixii qaateen bay magac kale ula baxeen bay hadana u soo jeestaan waxay leeyihiin idinku wax ma haysataan waxa kale oo keeni kara iyaduna arintaas ay ka dhalan kartaa faqriga iyo qofka markuu lacag waayo wax laana ku dhacdo iska rafaada meelo kale u garay mukhadaraadka gal xagga gal jamaacadka oo afkaar munxarifa gal xag u bax meelo kale lagu waxaysanaya sababta qofka wax ma haysto taasna wuxuu kaga badbaadi karaa in iimaan xoog loo leeyahay irsaaqada ilaahay baa bixiye irsaaqada ilaahay wixii ilaahay si inuu kalsoonaado buu ku badbaadi karaa marka maxaa ka dhalanaya qofka haddii inxiraaf uu galo oo caqiidadiisa isbedesho oo dhibaato ay gasho waxaa ka dhalanaya waxaa ka dhalanaya wax la yiraahdo cunfi gacan qaad iyo dil iyo wax qarxin iyo wax ka balaayo galaya qofka ilaa caqiidadiisa ba fasaado qofkaas takfiir baa iimaanaya qofku arkaba uu ku tuura xulay galbaad waxaa kaloo ka iimaan kara tashaddud wax la yiraahdo qof adag ومال أضيق أن الله بهنا دين تأضيق قلنا قف سيجار عبوا أركو حلي وين للدلة كان سيجار بو عباية سيجار حلال معها لكن عباية وين للدلة دلت معني الله نسحوي الاختلال في الأحكام بإيمانيس وحي مصنوعات كهاي يبوح وكذا جاية يواجب كذا جاية شيء صنع وقفك وحوجة جاية واجب فدوس يلين وكان وين لقى التخلص اختلال في الأحكام بإيمانيس وحكى أيضا كإيمانيسه القسوة في الأسلوب قف أضعك أو قف كلها الله يبعد مدشل إن صلى الله عليه وإيمانه الدجال وحكى سبب الدجال بيويه قف رحمة دي نبي وشيء الدين تينا الشيء ما بكجر توا قف دجاليه أسلوب أدق بالإيمانية وحكى الله سجنا كذا يسوء ظن بالناس دتكو أن إنه ملحن قفك وجه كسار واسداس ومشركين وقال كان يهين كاسبنا خير ملا دتكو واي قالوا واي دنت واي سعودين خير ملا فائدة ملا ولي يسبح ودلدل يا قف كاس ومديون ومد لقى صبري أو حن بنيته قول كان شيء وحوها ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين أصل قصص واي قف قدام بيقول أسا يا ربي يسكت حيسا وحن إن شاء الله تعالى كسوق جبينا يا كلمات يرى كسب سيل لوج بتبادل هاي أفكار منحرف كسيل لوج البادلة أولا تعليم التوحيد ككتاب كسنة كل سنة قف كإن لبره وهل كاس وكأن بقاض معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته نبي سيري لو تربية قف كأوبرت معرفة الصحابة رضوان الله عليه والاقتداء بهم صحابة إن لو ضيده أو سيرة ولا برت الأصل كدين تمشي كتمدوي نبي صلى الله عليه وسلم وحور يقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر واهتدوا بهدي عمار وتمسكوا بعهد من مسعود دتكاس كضيدوا يلو عهد قدقاته أو راع وحيدا لقبت بادي كراه معرفة من اقتدى بالصحابة صحابة دتك كضيدوا كدب بي أنا أقول إن برنا معرفة ده وجدت كذا قادنه معرفة من خالف منهج السلف الصالح دتك السلف كمنهج كذا خلاف سنة إن لبرت سير لوجد دكتور هذا ولوجد وريك تجد كذا وإن لبرتو أقول له لي برشة مركا وحنك على والدك يا معلمين يا دتك الدعاء ده وأمد إن يوفى إيدين أو يبران وحي ضروري إن لبرت أيتهاي وحي إن لوجد دقيقة ضروري إن لوجد دقيقة واجب قد كساس كلام وحايدا لوجد بتبادي كرا
ترك الغلو في الدين دين كإن مارتي حد قدب لغو سمين دين كواد قرن إنسان إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه دين كان ويسر والنبي صلى الله عليه وسلم قفك اسكت ضاي إنه دين تا سو أفضوبنا دين كحق بدنه أسقون بعد أحد كسار والله ما يقفكاس مركا سير رفقة أو ناكسن دين تي الله برتو وحي لو دقم كر لو دقمه حاران تلقى وذا فقاده حلاشي وناقري أوامرتنا وحي قفك والله إيمانه وأودي سا أيضا تهينوا لي ماذا لكن حرامته لقى وذا فقاده لو بهين وهكذا لو بهين هي ضدك إن لبرو أما قفك وبرتو جهادك يا شروط ديسا يا أحكام ديسا يا قرم واجب يا قرم إيمانه يا سوكو إيمانه يا للجهاد يا ضدك إن لبرو ووحي دليلك كل سنة لبرو صابت قف عن جهاد بكور قبل هدي أنت مال الله قال الله أخريه هذا وسك قاضنا لكن هدي لبرو وبكا سؤال ما يوحي دين تنا انكبرت واحد خلاف من بعد الشيء مركو ويسقبنا يا ويسقبك وقيسم يا مركا وحكم ده تحقيق العدالة الاجتماعية ضدك إني عدالة هذا بلشة هذا عدالة كهلان عيالك إني حق وده هلان تمرك إني عدالة وده هلان ضدك إسلام نول بينه حق يسهله عدالة ده صحيح نقول كرت حق التعليم ده وحين نقول كرت حق السياسة ده وحين نقول كرت حق بلشة ده مركو قفك إنه عدالة هله عدالة ضده هله حدريمية إنه أمني هي نبت قال لي كسوة شيء نفتي سبوء من نقنية كدي من نقفك وحنا نقنية عضو فاعل أو احترع بمرشد كنا نقنية لكن عدالة درها دي جرته ودد عدالة أن هلين أي جيران مستوى كسبها النقطة المها يركض دود دريمين عدالة جيرين عذر بهذا وكسوة مانا وحنا نقنية وحنا عكلا إسلام تقبل اللقب أساس كله طيروا وهذا سكري أساس كله ضدك شغالة هذين عدالة هلين مشكلة كذا عيسى وقفك بوسك بيجونه يديبوا صار نقنية قفك استعدالة بولاي حقي إنه هلو بلغ بتبارك على إنه قفك أي نقدان ضد محنكر هذا انحراف كاس وجود بين النقدان وحلقة بتبارك على عدالة إن هلو وحكى له بهاي هي إن أي جرته تربية سياسية صحيحة ضدك إن سياسة لو تربية بحي تهاي سياسة محلي هذا قرما لو بهاي هي حاجة صح كتهاي حاجة غلط كتهاي وحصلنا تاسنو حيمان يسأل الاحترام المتبادل ضدك إن أي إسأقول يهين أو ليس احترامه قفقة خلاف كرتان وإسلاين كرتان لكن وحن لو كلا تجي نبجر بلشة هو هذا لو كلا تجي ماي دين تلو كلا ماي صلاة لو كلا تجي ماي زيارة إسكور قبيت قرابة نمد لو كلا تجي ماي لكن رأيك إسكو خلافتين قفكو احترام بل أنتوا أصلا كقنع ما أتكقنع يساعدك أم واحد بدينا إذا قلعي اللي هلي أنت أسعلها وقادنة كاسوات رأيك إسكو كلا تكتين لكن أنت نكلا وأنا سوى تهوي واجبات كنا قد حيانا وإن لقوا الشقية أنه رأيك إسكو خلافس marka hadii aan arintaas mustawaha dadka ay gaaraan oo qofka loo aqbali karo ra'yigiisa ku khilaafo aqbali karo oo san goyneen sababta uu khilaafay ama waan iskhilaafay waan kala tagaynaa isla hadlimayno diinteena ma ogolo mujtamacana saas kuma dhismo marka waxa loo baahan yahay in qofka kala qabuul ra'yi al-aakhir baa leeyahay waa in la is ogolaado dadka hadalkooda wixii isku khilaaftaan ma wixii kala aad fiiris marka waxaad fiirisaa maxaan laga tagi karno isla haysana oo naga dhaxeeyo iyo maxaan isku khilaafi karnaa qofka nabiga wax ka sheega ama diinteena wax ka sheega ama diin xumaan aad ku aragto intaas waad kaga fogaan kartaa waxaad calaaqada la yeelanaysaa waxay noqonaysaa inaad naseexayso bas laakiin wixii kale idin ka dhaxeeyay oo adduun ahay oo tacaawun ahay waad ka tacaawunaysaan oo bulshada arrimaheeda ku saabsanaa intaas ay rabeen inaan ku soo gabagabeeyo waana mahadsantahay jazaakumullahu khayran wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh